ganacsada Maxamed Cawaale oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay waxa uu soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeeraryaha guud ee Soomaaliya ay xayiraadii kaga qaadeen shirkadda Future ee isugu ka ahaa asaasaha iyo waliba gudoomiyaha. halkan waxaan ka akhrinayaa afarta qodob oo ku saabsan shirkaddii Future Traders kiiskeedii. Price-kan maanta wuxuu soo baxay 22 Febraayo 2022. ujeedo faahfaahin case of Future Trade. qodobka koowaad waxaan soo dhaweynayaa in xafiiska xeeraryaha guud ee Soomaaliya iyo maxkamadda gobolka Banaadir oo iskaashanaya ay si sharaf leh oo garaamo ku jirto iga qaadeen xayiraadii ay saareen Amina Maxamed Cali iyo Saadiq Umar Xasan Saadiq John. xayiraadaas oo aan sifa aan sharci ahayn la saaray waqtigu markuu ahaa 15 Maarch 2020 waxaana tallaabadaas arxanka daran ku burburtay shirkaddii Future Traders iyo hanti badan oo aan si shakhsi ah u lahaa. qodobka labaad xafiiska xeeraryaha guud wuxuu guddi u saaray inay talooyin sharci ah ka soo gudbiyaan kiiska Future Traders. baaritaankaas oo socday muddo dhan 10 bilood waxaana guddigaas soo saareen natiijada in aanan wax dambi ah ka gelin gudaha dalka Soomaaliya. xisaab dheer ka bacdina lagu ogaaday inaan dhibano u ahay shakhsiyaadka sare ku xusan iyo Dahabshiil Bank iyo Premier Bank maadaama hantidayda lagu haystay si xaaraan ah oo aan sharciga iyo xeerarka dalka u yaala aan waafaqsanayn. ganacsaduhu waxa uu sheegay in dad badan oo tacadiye u geystay loo baahan yahay in lagula xisaabtamo. waxaa jira dad aad u badan kuwaas oo iga faa'iideystay dhibkii igu dhacay, kuwaas oo isugu jira saraakiil dawlo iyo shicib haddana ku haysta hanti aan leeyahay si xaaraan ah. maadaama aan dhibano u ahay waxaan xafiiska xeeraryaha guud ka codsanayaa inuu qaabilo dacwadaha ciqaabta ah ee aan ka qabo shakhsiyaadkaas si aan u helo xuquuqdayda maadaama aan iska bixiyay xuquuqihii markaa la sheeganay. qodobka afraad mahadcelin. Allah ayaa mahad oo dhan u sugnaatay. waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay baxnaaninta iyo soo dabaalidda in natiijo wanaagsan ay ku soo dhamaato dhibtii igu dhacday. waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa xafiiska xeeraryaha guud oo qaabilay dhammaan dhibanayaashii u dhibanaa hantidoodii siday u heli lahaayeen. maxkamadduna waxay ku mahadsan tahay inay dhammaystirto fulinta guddiga xeer ilaalinta fulisana codsiga xeer ilaalinta ka yimi. waxaan si gaar ah oo kale ugu sii mahadcelinayaa qareemadii u qareemayay dadkii hantidu kaga maqnayd shirkadda Future Trade. hantidaas oo muddo 2 sano ah lagu haystay si xaaraan ah oo aan arxan lahayn. xeeraryaha guud ee Soomaaliya ayaa dhawaan waxa uu sheegay in hay'adda FRC oo ka mid ah dhinacyada uu ka cabanaya Maxamed Cawaale aanay waxba xayiri karin iyadoo aan ogolaansho ka haysan maxkamadaha iyo xeerarlinta Soomaaliya. iyada oo ganacsatada Soomaaliyeed maskaxdu ay ku heynayaan in hay'adda FRC aysan xaq u lahayn inay xayiraad kaliyeed ku sameyso akoono shakhsiyadeed iyo mid ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo aan la soo ogeysiin xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka waarana aan laga qaadanin maxkamadaha awoodda u leh inay qaadaan ama bixiyaan xayiraadaas.